xarunta wadnaha ee isbitaalka takhasusiga ah ee Soomaali Suudanes oo xarun horumarsan oo u gaar ah daryeelka caafimaadka wadnaha ayaa waxa ay xustay maalinta caafimaadka wadnaha adduunka oo ku beegan 29 September ayadoo qabatay howlo muhiim ah bulshada muddadii 3 maalmood ee 27 8 iyo 29 ayaa xaruntu qabatay baaritaano la xiriira caafimaadka wadnaha oo bilaash ah taas oo ay ka faa'iideysteen qaybo badan oo bulshada kamid ah iyadoo ay u suurtagelisay dadkii ka faa'iideystay inay helaan ogaansho hore iyo talooyin caafimaad waxaa sidoo kale xaruntu ay qabatay kulan aqoon isweydaarsi ah oo dadweynaha u furan oo ay ka qayb galeen qaybaha bulshada iyo dhaqaatiir ku xeel dheer daaweynta iyo qaliimada xididada wadnaha furan iyo guud ahaan caafimaadka wadnaha iyadoo si weyn loo lafaguray sida loogu guuleysan karo ka hortagga cudurrada wadnaha inta aan xaaladda xanuunka adkaanin quburada waxay carabka ku adkeeyeen muhiimadda wacyigelinta ka hortagga iyo in la helo baaritaan iyo daaweyn waqtigeeda ku habboon oo ay leedahay natiijada xanuunka la xiriira wadnaha kulanka ayaa sidoo kale waxaa ka qayb galay bukaanno la soo tacaalay xanuuno halis ah oo wadnaha la xiriira iyaga oo la wadaagay bulshada sheekadooda iyo sida ay ugu guuleysteen xanuunkii dibna ugu soo ceshteen noloshoodii caadiga ahayd ayagoo muujiyay muhiimadda ay leedahay baaritaanka hore iyo daaweynta waxaa la qalab bishii July oo hadda la soo dhaafay kuwiitu wadnaha laga qaado anigu waxaan qalab Dr. Musaas tangu نوينا وانا حروق ما أنا دريني جرين ما أنا فاهمين جرين صح صحيح كمان رحلة جولاي حافظة كسوة بحق وإحنا مركز أنت لا يقتل وقلت له مركز أنا ودقائق وافر استي كبعد استان تجي أفرج جلالات أفرج تجار ما كنت بيدا تسمتاس ليك وبارد والله يقارن داوى اللي في داوى هذا ويسع طوالات فشوا ما كنا نطلع وترى وسوقتها intii lagu guda jiray xuska madasha xarunta wadnaha ee Soomaali Suudanes ayaa waxa la sheegay muhiimadda ay leedahay xuska maalinta wadnaha adduunka iyo doorka isbitaalka takhasusiga ee Soomaali Suudanes uu ka ciyaaro horumarinta daryeelka wadnaha wacyigelinta bulshada iyo bixinta adeegyo caafimaad oo badbaadinaya nolosha si kor loogu qaado nolol caafimaad leh xaruntu waxay sidoo kale qabatay tartan kubadda cagta ah oo bulshada lagu dhiirigelinayo iyadoo la xusuusinayo in ilaa iyo 80% cudurrada wadnaha laga hortagi karo haddii la qaado tallaabo qaab nololeed oo caafimaad leh sida jimicsiga cunto habboon iyo baaritaano hore taariikh aad u fiican maanta waa 29 adduunka dhan laga xusaa maalinta wadnaha adduunka hospitalka Soomaali Suudanes waxaa leenahay bravo thank you waxaa halku dhig u yahay 24 saac oo aad haysato nus saac kaliya wadnaha ka shaqeysii boodbood yani orod ama soco wadnaha jugjug ka si aad u raagto عمرك إلهي هايو لكن ددال صوت اسمع هذا ددالو سومالي سودانيس وعين لداي ان قف كستا مالين كستو وانه هلا اكسرسايز جميعسي بود بلون عيار xarunta caafimaadka wadnaha ee isbitaalka Soomaali Suudanes oo xarunta ugu sareysa ee wadnaha dalka waxay bixinaysaa adeegyo dhameystiran oo qoseeya caafimaadka wadnaha oo ay ka mid yihiin daryeelka aasaasiga ah ilaa iyo daweynta iyo sidoo kale furidda xididada wadnaha iyo qaliimada culus ee wadnaha furan xuskan ayaa waxa mar kale muujiyay ballanqaadka xarunta iyo isbitaalka takhasusiga ah ee Soomaali Suudanes oo uu leeyahay la dagaalanka cudurrada wadnaha iyo ku dhiirigelinta bulshada in ay qaadaan tallaabooyin firfircoon ay ku ilaashanayaan caafimaadka wadnahooda